Arsenal taageerayaasheedu waxay kaga farxisay in ay daawan doonaan ciyaarta ay garoonka dhexdiisa ka daawan doonaan ciyaarta October 3 ciyaarta Arsenal la ciyaarto Premier League kooxda Sheffield taageerayaasha kubadda cagta ayaa barihan uu ciyaaruhu aanu soo galin oo coronavirus ka dartii laakiin hadda rajo waa laga qabaa in ciyaaraha dib taageerayaasha u daawan doonaan bisha October ayaa la rajeenayaa hadaba taageerayaasha Arsenal ayaa taageerayaasha yani Arsenal kooxda Arsenal ayaa taageerayaasha ku wargelisay in ay October ka daawan doonaan gudaha garoonku ciyaarta ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Sheffield marka taageerayaashu way wargelinayaan wax weeyaan qoraal bay u direen taageerayaasha Arsenal u dirayso waxay leeyihiin taageerayaashiina sabra maalmaha ugu horeeya Premier League laakiin October 3 kulanka Sheffield garoonka dhexdiisa baad ciyaartu ka daawan doontaan bay leeyihiin marka rajo laga qabaa in garoomada gudaheeda ciyaaruhu laga daawado muddo soo aadan arrimaha ku aadan Arsenal iyo Juventusna waxa la sheegay in isdhaafsanayaan labada ciyaartoy la Gazzetta iyo Federico Bernardeschi iyo Andrea Pirlo ayaa fasaxay Higuain waxaanu doonayaa weeryahan waxa uu cadcad inay qaadan karayaan ninka aad ku doonayaan wax weeyaan Raul Jimenez oo uu ciyaara kooxda Wolves laakiin ninka uu la tadoogo xilladkan uu dhaliyay haday waayaan waxa uu ah nin kale bedel ah ninka la yiraahdo la Gazzetta hadaba Arsenal waxa la siin doonaa in waleeyay ninka la yiraahdo Bernardeschi la Gazzetta halka buu mari doonaa marka Juventus waa kay weeryahan rays bigu jirtaayo mid kale kulanka ugu horeeya Arsenal Fulham la ciyaarayso wali waxa la rajeynaya in lagu soo bilaabi doono keedka Arsenal waxay ku ciyaari doontaa shaxda Aubameyang la Gazzetta Bebe Saka Xhaka Maitland-Niles iibinaya baa la midkan wali lama iimiya cas waalideenku Tierney Luis Saliba iyo Bellerin oo lagu daray Martinez oo goolka ah